qoloba calankeed duul waa cayno inaga kenwa cirku kalaye aan caad balahayn ducaasaqaye bismillaahi raxmaani raxiim maantii oo bishuu tahay 29 February annagoo ku guda jirnaa shaqo howleedkeennii waxaan soo booqanay iskuulka Shariif Qulyateen oo ku yaalo degmada Shangaani. iskuulkani wuxuu ka mid yahay iskuulada ay gacanta ku hayaan gobolka Banaadir. waxaa lagu bartaa lacag la'aan, waxaa dhigato arday ka kooban ilaa iyo dugsiga hoose dhexe ilaa iyo dugsiga sare oo gaarayo dhowr boqol oo arday oo Soomaali ah. runtii waa nasiib badan yihiin maadaama cashuurtii laga qaaday dalkooda gaar ahaan gobolka Banaadir in ay wax ku bartaan waa arrin oo aad u wanaagsan, farxad gelinaysa ardayda Soomaaliyeed. laakiin waxaa laga doonayaa ayagana inay ogaadaan inay wax ku bartaan cashuurtii dadka Soomaaliyeed laga arooriyay markay wax bartaan ay u abaalgudaan dalkooda iyo gobolka Banaadir ay noqdaan wadaniyiin og in macnaha abaal lagu leeyahay rabana in ay abaal gudaan. waxbarashadu waa iftiin, waxbarashadu waa waxay ka saaraysaa mugdiga, waxay ku horseedaysaa iftiin ilays, waxay ka reebaysaa xumaha, waxay kugu toosinaysaa samaanta. waa shayga kaliya ee qofka aqoonta leh uu ugu bixi karo gaajada iyo abaaraha iyo wax walba xun, haddana ku jihay karo wax walba fiican. taa waxaa dheer in ay ku beerto wadaninimo Soomaaliyeed maadaama aad cashuurtii dalka aad wax ku barateen. waxbarashada qofku wuxuu leeyahay chance intuu yahay qof da'yar sidii adinka oo kale. haddii aad weynaataan oo waqtigii waxbarashada aad ka weynaataan waxma macnaha baran kartaan. laakiin maanta adikoo joogo dalkiinnii hooyo waxna ku baranayo waxaa loo baahan yahay waxbarashada inaad xoogga saartaan. shayga kaliya ee barwaaqada iyo gobonnimada iyo wax walba inay horseedayo oo inka saarayo inaad cid aad baridaan oo maskaxdiina aad maashaan waa inaad wax barataan. saasoo maaha balanteenu maxay tahay waxbarasho. haddii aad wax barataan maxaad ugu abaalgudaysiin dalka Soomaaliya aad wax ku barataan weliba lacag la'aanta ah? waajibkiina muxuu yahay? maxaana saaran waajiba? waxaan saaran waajiba in abaal gudaan calanka Soomaaliya baluga oo maanta aad harsanaysaan ayaa Soomaaliyo dhan kala mideeya. waxaa loo baahan yahay midkan inuu qalbiga iyo laabta inuu kaga yaalo, sababtoo ah kumanaan kun oo Soomaali ah ayaa ku nafuusay in la helo calan, in la helo xornimo, inaan noqono gob, inaan noqono Soomaali dal ah iyo dad ah. dhig badan baa loo qubay oo waliba dhalinyaro eeskiina oo kala ah ayaa keentay maanta xornimada aan ku macnaha laanoon lehno. ma timaadeen haddii raggaasi ayna dhiig loo daadi lahayn adinkana maanta wax ma aadan barateen. marka sida ogaada abaal iyo ayuu ku leeyahay dalka. noqda kuwii abaal guda calankaas baluga haloo abaal gudo soma. calankeena subhanahu qaabkee way ma cadaanba ma madooba ma casaanba ishaga bulu soma. hay markii ma taqaan markii heeska la yiraahdo qoloba calankeed ilaa anagu sumadeenu markay dadku alada Soomaali baan nahay astaanta kaliya ee midayso Soomaalinimada guud ahaan waa calanka buluga ah. marka qolo kasta calan baa leedahay, annagu calankeenu waa ka. marka haddii aad tihiin macallimiintii ay in bareen waxaan wada qaadanaynaa heeskii ahaa qoloba calankeed midba waa cayne. qoloba calankeed duul waa cayno inaga kenwa cirku kalaye aan caad balahayn ducaasaqaye. Soomaaliya adinkana wax barta oo noolaada.